السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتهين معي في عنتي سحبيال وقت ديران كلا مقنين دي بقى ديكو سو لابتay maalmahan mashquul jiray waxa loo socday maxaa la dhahaa programo oo waxaan ku jiray oo badan maxaa la dhahaa oo family ku saabsan iyo mashquul la noqday marka waxaan rabaa inaan ila wadaaga maanta laakiin saas ay tahay mani iga tagin oo mani iga wax la aan ma idin dhigeenin waxaan helay maxaa la dhahaa muxaadarooyin oo aad u mamacaan oo adii soo gudbin jiray oo ka faa'iideysay waqtiga dagaalka aan lagu jiray iyo Iraq iyo dagaalka ka socday adduunyada wax intay socotay anigana muxaadarooyin iyo wax qalbiga idin qaboojinayo idin soo raadinayo markaas idin soo gudbin jiray waana mahadsantihiin sida igu fiirsan jirteen iyo like iyo share sida igu saari jirteen jazaakumullahu khayr maxaa la dhahaa maanta waxaan rabaa inaan la wadaago labadii sano oo YouTube-ka aan ku jiray YouTube horta mar hore aan furtay maba ogeyn inuu YouTube ifuraya in kale maba ogeynba laakiin YouTube-ka waan ku jiray waxaan ku jiray 2016 laakiin waxba ma aan ku qaban aniga waxba kuma sameynaynin inaa YouTube aan haystay in kale xataa waxba kama ogeyn mobile-ka markii la ifuraya lagu furay laakiin wax magac ma lahayn waxba laguma qaban jirin hadda maanta waxa ii buuxsantay adiga 2 sano labadii sano markii ii buuxsantay waxaan heray dad raacay hadda xasuusateen sanadka hore Soomaaliya aan tagay waxa idin sheegay Soomaaliya marka aado waxaan rajeynaa 500 subscribers inaan helo alxamdulillah waan helay 500 waxay la ahayd wax cajiib ah because aqoonsiga koowaad kugu furmaya la dhahay oo maxaa la tan lacagta ma aha tan kale oo maxaa la dhahaa aqoonsiga koowaad kugu furmaya 500 waxay la ahayd si yaab leh sanada hadda ka soo wareegtay waxaan haystaa hadeertaan 5,000 oo qafood waxaan calaf waay dadna waxay iska helayaan hal maalin waxay iska heli karaan 24 saac gudaheeda waxay heli karaan 100,000 ama 200,000 sida hore u soo aragnay dad badan hele laakiin calaf waayo rizqaanaytad ilaaha qaybiyo nooc rabta ahaato ilaaha qaybiyo alxamdulillah shukr rabbil caalamiin maxaa la dhahaa waxyaalo badan oo ku farxno ilaahayna siiyay kan waxa waaye ziyaado raadisal dhaha ziyaado alguraasanaya iyo qofka haduu oo maxaa la dhahaa oo wax siyaasan karo isfiirin in la isfiiriyo le un kan waay waxaan rabaa inaan idin wadaaga maanta halkaas sano gudaheeda meeshii 500 aan sanadka hore saacadahan oo kale marka Soomaali aadayay aan dhahay subscribe-ka ii saara 500 i gaarsiya waxa ii soo ziyaaday sanadkan oo Rabbi subhanahu wa ta'ala ii ogolaaday oo irsaaqadeeda igu daray idinkana asxaan ii fasheen oo maxaa la dhahaa subscribe-ka ii saarteen 4,500 oo zaid ah yani waxa waaye waxyaab leh wax cajiib ah ilaaha mahad leh idinkana aad iyo aad u mahadsantihiin sida ay caawinteen oo maxaa la dhahaa oo aad subscribe-ka igu saarteen waad mahadsantihiin marnaba ma ka daalay inaa mahadsantihiin anigana dhinacayga waxaan ka wadaa qof haddii aan arko oo Soomaali ah oo maxaa la dhahaa oo YouTube soo furtay ama YouTube xataa qabo oo malin haysta xataa haddii oo iga soo horbaxo subscribe-ka yani waxa waaye canshuur waa iska bixiyaa qof Soomaali ma arkino waa iska bixinaa canshuurta waa bixinaa subscribe-ka ugu dhufana waxa rabaa sheego si u taala laakiin qofkan Soomaali waaye anoo caawinaa 1 malyan haysto 5 malyan haysto 100 ha haysto boskiyan ka soo baxaa subscribe-ka u tuuraya marka hadda dadka i fiirsadaan waxa boqolkiiba 15 ilaa 20 qofood boqolkiiba 15 subscribe way isaareen inta kale ma ay isaareen dadka qaarkood subscribe maxay dhahaa in loo baahan yahay waxaas ma ogo marka YouTube gashid waxaad ogaanaysaa inay maxaa la dhahaa horumarkaaga uu ku jiro dhaqaaqaaga inuu ku jiro ogaanaysaa marka anoo kale inta qof arko subscribe-ka waa iska tuuraa rabaa ma rabin waa iska siinaya ma arkin qof Soomaali ma iga soo harbixino subscribe-kiisa maxay iga dhigaa riixa marka fadlan saaxiibayaal 80% kale aan fiirsanin subscribe-kan ii saara hore u sii soconaya waa hooyadiin waa habareertiin waa walaashiin hore u rabteen oo sii socoto oo isbaroobeynayso qofka waa weyn dadka waa yeelka ayagana heer ma gaari karaan way isbaroobeynaysaa marka ibush gareeya hore u sii wada socne waana codsi taas wax xoog ma aha jazaakumullahu khayr hadda hore u sii socono 5,000 oo subscribers aan hadda helay waxaan kaloo helay warqadda la dhahayay tan
warqadaana hele Google AdSense kii la dhahaa hele waa ii timi marka tanna waxay maxaa la dhahaa ay ku bilaabay ay ku furaysaa meesha ay kaaga bilaabi lahayd qoritaanka inaad isqortid iyo lacag inay ku bilaabato iyo hore inaad usii socotid tii waa hele waa kana warqadii Google AdSense qalqalooc miyaa moogi saas Google AdSense waa hele taas waa taas kan kale aan ii wadan waxaa bishaarada kale aan ii wadan waxa waaye way bilaabatay tii way bilaabatay meeshaan waxaan u fadhiyay 2 sano aan fiirinayay wayaabaysi qof Yurub joogo maxay ka falay taanadanitood oo waxa la bixinaa it's not maxaa la dhahaa wax oo yar yar oo aad helaysid inay maxaa la dhahaa qiimo leh inay qiimo leedahay waxa waaye qofka markuu weynaado oo camalka uu hayo ay soo yaraato kun jaraadii sheegay wuxuu rabaa wax kala zaid inuu sameeyo inuu cararo wuxuu leeyahay tareenku wuu ka tagay soo qabo intaadii ku dhimanay marka aniga waxay iga tahay lacagta aan helay Google-ka 2 sano aan ka shaqeynayay oo haddeertaan dhowrkii bilood u dambeysay 2 bilood ugu dambeysay aan ka helay dadka fiirsadeen iyo advertisement aan ka helay waxa waaye lacag aad u yar waaye marka waxa waaye taas وكحشون حتى إذا ذي شيء العقير يعني لا بس أنا دان قفته وين أو يي أو ماما لا بس أنا دان مال إيفديسي مرة راشين عن كرناي مرة محل ده إن وحن سمينا أنا ما يلاحظ عن صوت دبي مركو قدام بيسنة إن وحن هلي وذا دو أو محلها وحن إيه فائدة يعني إذا كان محلها وكفائدة ستين وطبعا جزاك الله خير نوصل بدي الشيخ عبد الرحمن بشير نوصل بدي مركز بدك دهان وذات كاسيت أو رجبوتي جاه وكندا دقن آدي أنا أقول فائدة aniga waxaan ugu faa'iideysto waxa waaye qisooyin badan oo ka shaqeeya oo quraan ku saabsan iyo horumarka ibnaadamka oo ka shaqeeya oo cilmi ahaan oo ku dara marka maal dhaxaso wuxuu kitaab wuxuu noo sheegay wuxuu noo akhriyay wuxuu yiri waxa adduunka ugu xun oo yiri adduunka waxa ugu xun anagoo dadkii adduunka ma kala keenayay nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam oo rabbi subhanahu wa ta'ala oo jibriil usoo diray اقرأ على ده وأنا وحبا آخرين بابا قلد هو يري يعني وحوا يري أو محل لقى حشوة ويري قفدان أو نول أو نفك جرتو أو إسكول لقيه أو وحبرتي دوكسي هوس هذا دوكسي سرق هذا جامعة إسكاب الدابو يا أو آخرين كرو أو بالقلطي لما تي يا أنا وحبا آخرين وحوا يري نحسنمو تاسكوين إبتكي ماركن ويري marka ana dib isku fiiriyay bil ma ahe sanad wax baan akhrina arka ramadaan fil gaara ordaya kitaabka soo qabana yani shuq macquul miya taas wax macquul miya qof dhan oo nool soo sheegay markuu sheegay dareenkayga dhan wuu soo noolaaday oo waxa la dhahaa ibn aadanimada oo waxa soo noolaatay in liiga rabo inaan wax akhristo ina hore u socdo hadda ani kitaab ma bilaabin waxa la dhahaa book oo gooni ah oo cilmi adduunyo aan kasoo siyaadsanayo maan bilaabin sida warkiis u baday sida sheekadaas aan ugu dhageystay buug u qaas ah oo akhrin ah ma bilaabin ama buug maana soo qaadan oo ku saabsan cilmi ibn aadan cilmi nafsi waxay rabta ahaato ma soo qaadan ama Soomaali ku qoran ama luqad kale ku qoran laakiin waxaan sameeyay maalinta warkaas aan maqlay waan isku xishooday ilaahayna waan ka xishooday kitaabka rabbi subhanahu wa ta'ala soo qabsaday galabtii markaa casir dukado waqtiyaan qaataa وشقوينكيga iyo wixii kala dhamaadaan waqtiyan qaataa waan fariistaa maxaa la dhahaa in kitaabkiga quraanka akhristaa marka hore waxaan akhrin jiray kor ka soo akhri wax yar hoos ka soo akhri meel dhaxis kaga tag hadda waxaas ma nidaam ku socda alxamdulillah shukr rabbil alamin idikar ilaahay ka soo ilaasaas ku socotaan nidaam ku socda baqaraan ka soo bilaaba waa dhameeyna alxamdulillah jidka saa furma hadda alxamdulillah shukr rabbil alamin idikana waxa idin rajeynaysaa soo kale dad inta laga gaarayo aan kasii ilbaxayo oo training had isku haya trainingka markoo ii dhamaado aan ku soo baxo excellent aan ku soo baxo aan saas dhaho gabarigii wax fiican aan sameys aan dhaho yani waa shaydaanka waa ka raysay oo muku mashquulin waxaan macna lahayn muku mashquulin galabtii marka la gaaro oo timeka ay heshido ku qafiftid oo waxbarashadaadii aqishay quraan akhrisanaysa marka in the future waxaan rajeynayaa inaan kasii fiicnaado oo maxaa la dhahaa oo aan sii badiyo akhrinta oo maxaa la dhahaa oo aan kitaabo aan usii gudbo kalentad aan barto anoo quraankayga sii wato aanan deynin waxaan ogaadayse
wadaadada hadda maalmahan aan dhegeysanaya oo idinkan aad iisoo gudbinayay waxaan ogaaday in oo maxaa la dhahaa oo wax badan noo dhiman tahay da-daa artid ku jir sida anoo kaleed qof weyn amba qof yar ahaaw waxaan u baahannahay inaan mar kasta hore usii socno marka hore socodkaas waxaa waaya qofba nooca u arkaa aniga hadda waxaa noocan aan arkay oo igu cusub oo aan hurdo kaga soo kacay waan iska hurdaayey maxaa la dhahaa iskoolka waa dhameeyey qalinka waajibiyada waa ka baxay kitaabkayga ma haystaa choice sida aan ku subsan lahayn oo wixii aan akhrisan lahaa buugne inaan hadda bilaabo ku saabsan horumarka ibni aadanka siirada nebiga maxaa la dhahaa wax ku saabsan maxaa la dhahaa xataa nafta ibni aadanka waxay u baahan tahay oo maxaa la dhahaa sheeko xataa oo laakiin qofka muslimka hore u wadaa amba dadka siduu yiri wadaadkaas uu dhaho camal amba dadka oo hore u mareen oo maxaa la dhahaa hadday muslim xataa laakiin oo hore u mareen oo ka hadlayaan wax aqligalka ah horumarka ibni aadanka oo aqligal ah dadka ka hadlayaan aan diin soo gelinayn buugta hataa wala aqris karaa yiri marka saaxiibayaalo warkii aan igu daalin finalka u dambeeyey lacagta oo aan ka helayo maxaa la dhahaa youtube aan ka helay 2 sano soo shaqeeyey oo hore gadaal u socdaysaa hore lagu sheegay laakiin bishii June iyo July oo hadda aan ku jirno maanta 6 intaas inta maxaa sameysay kunkii qofood ku fiirsado advertisement-ka waxaad ku helaysaa dadka kala nooc waay dad waxaa jiro oo maxaa la dhahaa levelka maxaa la dhahaa kunkooda qofood ay ku helayiin ilaa iyo $30 gaarayso dadna waxaa jiraan $1 iyo kasii yar gaarayaan aniga marka waxaan ku jiraa dadka 30 maanan gaarin oo maxaa la dhahaa oo waxba meeshaas ma u dhowi xataa laakiin dadka $1 iyo kasii hoose ka fiicanahay intee marooyaa waay $7 iyo jajab $8 camal $7 waay meeshaasaa marooyaa kunkii qofood i fiirsato advertisement iyo waxa soo galaysa u shaqeynaya si fiican muu aqaani hadeertaan waxyaalaan soo fiirsaday soo arkay waxaan helaa $7 iyo xoogaa ama $7 iyo xoogaa aan helaya marka haddii ay maanta maxaa la dhahaa oo ay sii badatane way iga sii badnaanaysaa waxaa waaye qiyaas ayaga ay qiyaasaan waaye dadka intay ku fiirsanayaan iyo waxbay siba wax ku shaqeeyaan sida wax u shaqeeyaan dhinacaas weli ma fahmin marka waxyaali badan oo bartay meeshaan laakiin kaas ma fahmin marka June iyo July hadda bilaabatay maxaan sameeyey waay marka waxaan sameeyey 120 iyo jajab 120 pound aan sameeyey 129 pound camal aan sameeyey marka wax badan maaha qof weyn wax oo maxaa la dhahaa meel iskaga fadhin karo oo maha laakiin tan aniga ma aha miiga ahaan shaqo oo nolosheedu ku xiran tahay amba shaqo oo dhahay maanta YouTube aan furanayo lacagaan ka subsanayo lacagta iga soo gadatay gurigan ku masruufanayo ama Afrika u diraya aan ku reerkayga aan ku quudinayo ama nafteeda aan ku quudinayo ma aha tan waxa waaye hobby inaan fiiriyo fuduul inaan fiiriyo wax ma samayn karaa casriga hadda jiro dhalinyarada bismaa leh marka dadka waaweyn waxbaa ka leeyihiin of course qofka ibnaadamka intuu nool yahay wax waa leeyahay marka ilaahay wuxuu u qoro leeyahay risaq waa markaan waa la wada qaybina qof kasta loo qaybina adigu un dhaqaaqa lagu yiri waxan waa keenaysaa marka 129 pound aan waxaan sameeyey June oo fully 30 days iyo July oo hadda tan asbuuc ka heesano so congratulations isoo dhaha maxaa la dhahaa meel dheeraan gaaray ilaahay ka sokown idinkaa i gaarsiiseen aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakum allahu alfa khayran dhinaca lacagtane screenshot aan kasoo qaadaa waa idin soo tusinaya meeshaan idin soo tusinaya in aragtiin oo qofkii oo YouTube soo gugurinaya sidaas ugu gurtay anoo kale dad si oo maxaa la dhahaa niyad ugu dhisto oo dhaho waxbaa soo socdo so thank you very much waad mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin